الله وبركاته صاحبيال kusoo dhawaada casharkeen galabta insha Allah hadii la yiraahdo casharkeen oo ay cusubni waa dhis horad u taqaaniin haddana insha Allah waxaan ka dhigaynaa in aan ka faa'iidno wax badan marka dhageysamaan halka waxayna u qoran English vocabulary halkan af Soomaali eray cusub waa labada eray soo dhow assessing waxa weeye qiimeynaya ama qiimeyn waxaad qiimeynayso identifying waxa weeye aqoonsi shay aad raadisay oo soo ogaatay xogtiisa iyo meesha asalkiisu yahay condition hadana xaalad criminal waa dambiile critical waxa weeye dhaliil ama xaalad adag confuse waxa weeye jahawareerin clarify waxa weeye cadde ama caddeyn waxbaad sheegtay caddeynkeena lagu dhahay kaafiga waxa weeye bandow salaana kolka xaalada amniga lidii ku jiraan dawladdu mar walba waxay soo rogtaa bandow situation waa xaalad evaluate qiime qof baa shaqo u dirtay shaqadii qof ku qabanaya dabagal ku samaysay waad soo qiimaysay waa garanay result waa natiijo taa aad samaysay natiijadii ka soo baxday noqonaysa basically asal ahaan shaygan meeshuu ka soo jeedo fellowship waxa weeye wehelnimo ama saaxiibtinimo ensuring waxa weeye hubitaan ama xaqiijin have you ensure emphasize waxa weeye xoojin hal mar haddaan ku celino waxaan dhahaynaa assessing waa qiimeyn ama dabagalid identifying aqoonsiga shay aad aqoonsato kad xogtiisa raadisa kadib aad aqoonsato condition xaalad criminal dambiile critical xaalad adag ama dhaliil confuse waxaan dhahaynaa waa jahawareerin waxaan saxayn ummadda lagu jahawareeriyo clarify caddee tan waxay kaga duwan tahay war baad sheegtay markaasaa la yidhi xogtan caddee meeshaa ka keenta caddee curfew waxa weeye ereygan waxaa loogu dhawaaqi curfew waa bandow xilliga amnigu wuxuu yahay dowladda go-aanka ay soo rogto ama xadididda dhaqdhaqaaqa situation waa xaalad evaluate waxa weeye waa qiimeyn dabagal bay inta badan loo adeegsadaa dabagalka waxa weeye shaqa qof u dirtay si qofkaas u shaqeeya adiguna dabagal ku haysaa waa garanay result waa natiijada ka soo baxdo kale basically asal ahaan Soomaali waxay ka soo jeedaa hadii la wado maxaad ku jawaabi lahayd basically where does Somali came from fellowship wehelnimo ama saaxiibtinimo ensuring hubin ama hubitaan waxaad hubto I'm ensuring I have done this one waan xaqiijinayaa inaan midaas sameeyay emphasize xoojin waa waxaad taageero gaar aad siinayso intaas ayaan ku dignaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.